Waxaa la soo tabiyaa sheekooyin fara badan oo ku saabsan ciyaaryahanada adduunka. Maanta waxaan ka hadlaynaa sheeko ay leedahay gabar Soomaaliyeed oo guul ka gaartay ciyaaraha feerka, haddana rajeynayso inay matasho dalkeeda hooyo. Haddaba waxaa isweydiin mudan waa tuma gabadhaasi, halkay ku nooshahay, sidee u xaqiijisay rajada ay in muddo ah ku taamisay. Inta aan barnaamijkeena gelin, waxaan kula socodsiinayaa inay muhiim inoo tahay inaad like saartid muuqaalkaani, siina share gareedid si aynu u helno saaxiib sida adiga kaleeta ah. Ramla Saciid Cali waa gabar Soomaaliyeed oo feeryahanad ah, waxayna ku dhalatay magaalada Muqdisho sanadii 1989. Sidoo kale waxay ku barbaartay London kadib markii ay qoyskeedii ka soo qaxeen dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalkeena hooyo, kaas oo sababay in uu u geeriyoodo walaalkeeda. Waa haweeneydii ugu horeysay oo Muslimad ah oo ka qayb gashay tartanka feerka oo lagu qabtay dalka Ingiriiska sanadii 2016, waxayna tartankaasi ka soo gaartay guul. Haatan Ramla Saciid Cali ayaa ka qayb galaysa tartanka Olombikada adduunka oo ka dhacaya dalka Japan, iyadoo ku matalaysa qarankeena Soomaaliya. Daawade, haddii aad ila joogtay ilaa dhamaadka, waa kaga mahadcelinayaa daawashadaada quruxda badan. Haddii aan weydiiyo maxaad u rajeynaysaa Ramla Saciid Cali oo ah gabar Soomaaliyeed u tartamaysa qarankeena Soomaaliya, jawaabtaada oo dhammaystiran nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga.